Asalaamu calaykum asxaabteena. Ku soo dhawaada Amanjano. Muuqaalada noocan ah hore ayay ugu faafeen internetka, balse kuwa badan oo ku tusi doono waxaan hubaa inaadan hore u arag. Inta aan u guda galin ciwaankeena, daawada waxaan kaa codsanaynaa haddii aadan channelka subscribe saarin inaad subscribe saarto, haddii aad video ka heshan inaad like saarto si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Muuqaalka ugu horeeya, nin ka badbaaday shil mooto. Sidaan wada ognahay, mootooyinka tartanka waa kuwo khatartoodu ay aad u badan tahay, marmarka qaarna sababi kara shilal lama filaan ah oo ay ka dhalan karto dhimasho ama dhaawac halis ah. Bal ila daawo muuqaalkan daawade. Muuqaalka labaad, dooliye ka badbaaday dhimasho. Dooliyahan waxa uu rabay inuu ka qayb qaato tartan diyaaradeed, balse intuu bilaaban tartanka ayaa cilad dhanka injiinka ah qabsatay diyaaradda dooliyaha ka ahaa. Bal ila eeg waxa ku dhacay ninkan. Muuqaalka saddexaad. Muuqaalkan waa muuqaal aad iiga yaabiyey. Askar Ruushiyaan ah oo baranaysay gaansulud ayaa mid ka mid ah xabad ka fakatay waxay koofida ka batisay askarigii ka horeeyay. Bal ila daawo muuqaalkan. Muuqaalka afraad. Tabeele badbaadiyay naf. Gabar socotay wadada qarkeeda ayaa waxaa ku soo furay goosta gaari, balse tabeele gadaasheeda surnaa ayuu ku dhacay, sidaas ayayna ku badbaaday gabadhii. Bal ila daawo muuqaalka. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaa inoo balama muuqaalka xiga insha Allah.